الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله maanta waxaan ka hadli doonaa sixr الربط iyo sixirka la yiraahdo sixr التصفيح. marka in sha Allah darsigeena waxa waaye darsigan waxaan ugu talagalay maaragtay dadka maaragtay arooska galaa habeenka arooska waxa dhacay sixirada oo habeenka arooska maaragtay badanaa loo isticmaalo sida uu arooska uu ku fashilmo mise oo talaaq uu ku yimaado. marka in sha Allah mawduucan aad iyo aad u muhiim u yahay in sha Allah waxaan in sha Allah idinka codsanayaa inaad maaragtay si fiican aad dhigaha u kala furtaan in sha Allah. marka sixr rabtan sharaxaya sixr tasfiixna waan sharaxaya markaas kadib ayaan calaamooyinkooda iyo wixii dhan aan ka hadlaynaa in sha Allah. sixr rabt waxaa la yiraahdaa raggaa loo isticmaalaa iyo dumarkaa loo isticmaalaa, laakiin sixr tasfiix dumarka kaliya loo isticmaalaa. marka sixr tasfiix waa maxay? sixr tasfiix waxa waaye waa hooyo oo gabadheeda inay waday oo waxa u geysay nin sixroole. gabadha intaysan qaan gaarin ay sixroole u geynaysaa. waxay u leedahay gabadheeda cawradeeda inaad ii xirto ayaan rabaa sidaysan zina ay u galin ilaa ay ka guursato. in oo cawradeeda ay xirnaato ayaan rabaa ilaa markii la guursanayo maaragtay markaas in loo furo. marka sixroolihii sidii ayuu maaragtay uu sixirku ugu sameynaya gabadhiyo soo xiraya. marka sixr tasfiix ayaa la yiraahdaa midkaas. waa waxa waaye cawradeeda wuxuu noqonayaa derbi oo kale ayuu noqonayaa. marka gabadhii waxa waaye looma tagi karo. marka sixr tasfiixani waxa waaye marka qofta maaragtay oo sixir loo sameeyo oo sixirka jirkeeda oo galo waxa waaye jinni ayaa jirkeeda soo galaya. marka waxa waaye ilbaab ayaa loo furayaa oo jinnigu soo ku soo galo. marka gabadhii oo weli aan qaan gaarin sixirka waa inuu laakiin ahaadaa gabadha intaysan weli qaan gaarin ayaa badanaa sixir tasfiix la sameeya. xataa caadada uma imaanin, waa gabar oo weli aan caado u imaanin ayaa loo sameynayaa sixirkaasi. sidii ayuu jirkeeda ku galaya. jinniga marka sidaas oo jirkeeda kusoo galaya. waxaa dhici karta xataa sixiroolahaas inuu jinni soo dirin oo sixir kaliya uu sameeyo, laakiin markii uu arko jinniga maaragtay jinni jidka iska socdo iska soo galaya. marka gabadha yaraanteeda maaragtay yaraanteeda ayuuba jinnigan jirkeeda ku nool yahay. markii arooska la gaaro waa marka oo maaragtay wax waliba banaanka imaanayo. marka maxaa dhacaya? habeenkii arooska ayaa wax waliba banaanka imaanaya. muxuu sameynaya jinnigaasi? wuxuu sameynaya wax la yiraahdo manca. yacni wuxuu keenayaa gabadhii labadeeda lug intuu isku keeno ayuu isku dhejinaya. ninkii si kasta intuu isku dayo oo lugaha kala furo ma kala furi karo. rabt ayuu ku sameynaya. yacni labada lug ayuu xiraya sida qof xergo lagu xiro oo kale. ninkii uma jeeda, laakiin si kasta xoog ayuu ula dagaaltamaya sidoo lugeed u kala furo ma kala furi karo. tan labaad wuxuu ku sameynaya wax la yiraahdo ataballud, cadam alraqba fi ljimaac. ma ratabo inuu ninka korkeeda taabto. ilaaf waan daalanahay waan kidi wax cudurdaar ayay u keenaysaa. yacni maalin walba iska dhaaf habeenkaas aroos inta ay waxa bishaas oo dhan waxaad arkaysaa qofka inuu maaragtay oo cudurdaar ay u raadinayso. niyad uma hayso inay ninkeeda la jiifato. wuxuu kaluu ku sameynayaa naziif ayuu u keenaya. dhiigaa ka daadanaya. dhiigaa ka daadanaya. wallahi gabdha waxaan arkay maaragtay oo aroos ah intay wadamada gaalada intay ka tagaan nimanka xaq kusoo guursanayaan mise ninkaa intuu imaanayo markuu ninka ay isla kulmaan markaasaa dhiig u bilaabanayo. waxaad arkaysaa ninkii intuu la joogo oo dhin hal bil
laba bil 3 bil dhiig lay socdo oo non stop ah. waxaa kaloo lagu arkayaa qoftii habeenkaas arooska cawradeeda oo dhan oo xiraya. waxaad arkaysaa hilib maaragta ayaa hor saaran. ninka markuu damco inuu naagta u tago wuxuu arkaya waxaa soo celinaya. waa la wadaaya gabadhi operationa lagu soo sameynaya, waxyaa lasoo furayaa. markuu ninka u timaadan meesha sidii u xirantaha markay caafimaada kadib sidii u xiran yahay sidii haddana ugu soo bilaabaya. marka qaladka yaale qaladka waxaa le hooyadaas oo maaragtay ninkii u tagtay oo sixiroolaha ahaa gabadhaan sida loogu soo sixro oosan oo waxay is leedahay ida gabadhaada xafid oo gabadhaada maaragtay gabarnimadeeda yaa lagu dheelin iyo uurkaa qaadin, waxyaalahaas dadaalay ka tahay. laakiin jidka qalad ayay u martay. sixiroole ayay u tagtay, sixiroolihii waxaan usoo sameeyey oo ma aragtay gabadhii waxay sidaas ay ku noqonaysaa mustaqbal la-aan. lianna jinnigii intaasoo sano ayuu jirkeeda ku jiraa. ma qof waxaas u bartay oo intaasoo sano jirkeeda ku noola ma si dhaqsi uga baxaya marka? maya, ma ka baxayo. okay, ninka hadduu sixran yahay ka waran, ninka maxaa ku dhacaya? ninka waxuu is arkayaa habeenkaasi inuusan cawradiisba aan shaqaynaynin. si kasta isku day intuu carar, intuu fiiri, dhinacaan fiiri, dhinacaan fiiri, wax ka dhaqaaqaayo male. wuxuu kaloonu isku arkayaa taballudka naftiisa isku arkayaa. taballud niyad uma hayo. markuu iyada ka tago waxaad arkaysaa maanta dhan iyadoo ka fikirayaa. markuu u yimaadan waxaad arkaysaa gaar ahaan habeenkaas arooska ma aragti niyadba uma hayo. waxaa dhabarka ayuu aadinaya, ayadan dhabarkay aadinaysaa. marka sixir taballud ayaa la yidhahdaa. niyad uma hayo waxii oo dhan ma aragti sidaas ayuu ku fashilmaya. marka wax waliba oo dhaco maaragtay wax waliba oo dhaco ma sixir baa marka? maya, sixir ma aha. waxaa dhici karta caamil nafsi inuu jiro. gabadhaas waxaa dhici kartaa lugaha waxay iskugu hayso waxay soo maqashay gabdho asxaabteeda hor loo guursaday inay usoo sheegeen habeenkaas inay xanuun dareemayso, oo sidaas darteeda iyada waxaan ayada inay samaynayso oo jinni uusan jirin oona sixir jirin. nafsiyadeeda cabsi darteeda maaragtay ayaa dhici kartaa maaragtay inay lugaha ay maaragtay isku dhajiso oo ninka ay diido. laakiin arrintaas wax badan ma soconaysa. habeenka koowaad, habeenka labaad, habeenka saddexaad, isbuuc waa dhici kartaa inay saas ahaat ee marka dambe caadi u ogolaato. laakiin sixirka maaduu yahay maba ogolaanayso ee jinni maba u ogolaanay inay lugaha kala furto. waa iska soconaya waxaan oo soconaya. tan kalena waxaa jirto niyad daradana ma aragtay waxaan dhahe muxuu ahaay mid kalena idinka iloobay. waxaa jira waxa la yidhaahdo التغوير. التغويرkana waxa waaye waa gabadha cawradeeda waxaa laga dhigaya sida ceel oo kale. ceelaa laga dhigaya. ninkii waxaa arkaysaa cawradiisa maaragtay meel hawo leh iska iga jirta, maba ogaba meel oo geliyay. meesha gabadhan oo bikri oo ka filanayay habeenkaas arooska wuxuu dareemaya qoftan inay bikriba ahayn. waxa u sameynayaan waa jinniga jirkeeda ku jiro mise sixirka jirkeeda ku jiro ayuu wuxuu rabaa waxaan inuu fashilmo oo ninkaan cararo. marka arrintaani oo ma aragtay oo caamal nafsiga ah wuu jiraa. inay qofta lugaha isku dhajiso waa dhici kartaa. inaysan ma aragtay lugaha kale yani ay niyad darar ku dhacdo waa dhici kartaa oo ma aragtay cabsi darteeda u geysatay. laakiin sixir nasiif dhiigaan iska daadanayo mise cawradeeda ceel noqonayso iyo ma aragtay iyo cawradeeda waxa noqonaysa sida oo derbi oo kale, wax oo caamil nafsi ma aha, ma noqon karo. ma idan xiri karta cawradeeda maya. waa marka waxa waaye waxa kaliya caamal nafsiga keenaya waxa waa markay niyad darre ee niyad u haynin iyo markii ay maaragtay ay cabsanayso oo labada lugu isku dhajiso. laakiin intaan saddexdan kale haddii laga helo waxaa ogaatay inuu meeshan sixir yaallo oo u baahan tahay qoftan in la cilaajiyo. anigana duruus darsiga hadda kor aan soo sameeyay insha Allah hoosna waa idin soo dhigaya. qof sixran ma guursan lahayd? qof sixran leh ma guursan karaa? ay su-aashaasaan ka jawaab. qof sixran leh waa guursan kartaa, sixran waa guursan kartaa,
laakiin in la cilaajiya ka horeyso. qofku waa jeceshahay, qofku waa rabtaa inaad guursato, ceeb ma aha inaad qofka aad maaragta aad ka hesho, aad jeclaato oo aad guursato, dhib ma aha. laakiin intaadan guursanin cilaaj soo dhib, cilaaj ha marto, mise asaga cilaaj ha soo mara. maxaa ceeb ma ah. qofka hadduu jiran yahay intuu uu maaragtay uu khasaaro gali lahaa oo furitaan iyo rafaad uu mari lahaa, ha issoo cilaajiye. markuu qofkan kaliin oo soo noqdo oo soo caafimaad, ha guursado. ka waran habeenkii arooska hadduu waxaan kugu dhaco, qofta adiga aa bikir aad ka filinaysid oo cawradeeda ceelku lagaaga dhigi, ka waran mise cawradeeda derbi lagaaga dhigo. operation ad wadaysa, operation waa soo qalaysa, iyada waa la soo qalaya, waxaa la sugaya ilaa ka caafimaad, haddana sidii haddana derbi u noqonayo, mise dhiigaa laga daadinayo, iyadoo dhan habeenkii dhan dhiigaa ka socdo. waxaad samayn kartid male. marka waxaa dhici kartaa ninka rabta waxaa loogu sameeyey in oo maaragta asagana experience uusan u lahayn, wuxuu cawradiis ula shaqeyn waas experience ma laha, weligiis naaga ma guursanin, waa marka ugu horreysa naaga uu guursanayo, nafsiyadiis cabsi amad fashiltaa darteeda inuu wax u sameyn waayo habeenkaas, oo cawradiis ay shaqeyn wayso, mise oo niyada dhan laga qaadaba habeenkaas ayaa dhici karta. marka sixiradan waxaa loogu talagalay daa'iman arooska, dadka arooska ayaa loogu talagalay. laakiin macquul ma tahay dad aroos inna waxaa loo sameeya? maya. dad isqaba xataa waa loo sameeya oo intaasoo sano isqabeen, laakiin dadkaas waxay kuwaan aga fiican yihiin, waxay aga fiican yihiin dadka isqabeen. wax badan isqabeen way dareemayaan inuu wax qaldan yahay. matalan hadda qofka oo ninkan oo gabadha oo intaasoo sano qabaa, ka waran cawradeeda ceel haddii laga dhigo, wuxuu leeyahy waxbaa qaldan. maxaa qofadhan waxay ahayd maasha allah intaasoo sano isqabnay, cawradeeda saan ma ahayn, waxbaa qaldan, waxbaa jiruu leey. ama hadduu arko naziif sixir waxa lee socda, dhiig lee socdo, dhiigaan ma qaban jirin, weligeeda saan ma ahaan jirin, waxaa dhici kartaa markaas inuu indhaha kala furo. mise hadduu uu arko maaragtay in oo maaragta qofta niyadba aysan u ahaynin, oo wixii maaragtay aysan rabin ninkeed inay la jiifato, waxbaa qaldan wuu soo saaraya. laakiin qofkan oo is the first time, waa marka ugu horeyso qoftan oo la kulmaayo, calaamooyinkan hadduu ku arko wuu cararaya, wuxuu leeyahy meeshaan maaragtay waxba kuma yaalle, ka carar, maradaada hore u qaado. marka badanaa sixirada oo maaragtay oo guurka oo habeenkii arooska loogu talagalay, dhaqsi ayay maaragtay ayaa lagu kala tagaa oo ku fashilmaa. kan kale ma aragtay oo qofka naagtiisa qaba intaasoo sano qabo, waxa waaye qofka isku markii waxa waaye hadduu oo caqli leeyahay, isku markii indhahu kala furaya, wuu fahmayaa in oo maaragtay meesha wax ka jiro. ilaa man raxma rabbi, dadka qaarkoodna waxa waaye waa dhaga tari, dhagaha ka xiran, ma fahamsanaba waxaan. wuxuu leeyahay qoftan waa kibir badan tahay, cawradeeda xataa ceel oo kula arko wuu ka shakinaayo, wuxuu leeyahay qoftan niman kale waxay, walciyaadu billah, waxyaala aan loo jeedin, shaki ayaa ku abuurmaya naagtiis inay zini iyo waxaas aada ayuu oo u maraynaya, oo niman kale u tagto. sixir naziif dhiigana iska socda markuu arko, wuxuu leeyahay dhakhtar gee intiri, war waxaan qoftaan waa maxay? uu leeyahay waaba jiratay, ka dhaqaaq. mise hadduu ku arko maaragtay inay cawradeeda ay waxa noqotay derbi oo kale, inuu ka cararaa dhici karto oo waxba xal u raad. marka nimanka isku sabar ma aha, isku dabeecad ma aha. nimanka qaarkood wax inuu qaldan yahay way fahmaayeen, isku markii indhahay kala furayaan, kuwa qaarkoodna maaragtay waa iska dhaqaaqayaan. marka ilaahay subxaana wa tacaala ilmaheena hanoo xafido, gabdhaheena guursanaya ilaahay hanoo xafido, wiilashaan guursan oo mustaqbalka guursan doona ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ma tusiyo. marka aniga waxaa waana iga ah, qof intaadan guursanin iska fiiri inuu wax ku jiro, intaada waxaan dhan aad la kulmin, habeenka arooska aad la kulmin. sixirada habeenka arooska loogu talagalo waa badan yihiin, marka noocyadan ayaa loo isticmaalaa. marka haddaad noocyadan oo maaragtay ood aragtid, iska jir in oo maaragtay aad furitaan iyo wax aad ku degdegto ma fiicno. waxaan anin kaala waan kaa waaninaya inaad maaragtay qofta aad cilaaj aad u dirto ama soo cilaajayso intaadan guursanin. waxaasoo dhanna insha allah lama kulmaysid, ilaahay subxaana wa tacaalana maaragtay waxaas wuu kaa badbaadinaya insha allah. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.